xildhibaan cabdilaahi yuusuf axmed oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha wakiilada somalilan oo maanta telefishinka bulsho kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay xaaladda weriye cabdimaalik sheekh muuse culdoon oo maalinkii shalaheed ay ku booqdeen xabsiga madheera. xildhibaanka ayaa tilmaamay eedaha uu cabdimaalik ku eedeysan yahay isagoona sidoo kale hoosta ka xariiqay in ka gol ahaan aanay ka hadhayn ilaa uu cabdimaalik cadaaladiisa helo. bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horeyn waa idiin mahadnaqayaa bahda bulsha t v. cabdimaalik shalay waanu booqannay iyo xabsigaba maxaabiis badan baa ku xidhan oo aada u tiro badan. guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa taliska madheere ee ciidanka asluubta ku sugan. runtii cabdimaalik haddaan qadiyadiisa u soo noqdo, cabdimaalik aad iyo aad ba xaaladiisa caafimaad u fiican tahay, wuu wanaagsan yahay, wax dhibaataa ma qabo oo aan ahayn un xorriyaddoo ka maqan. wax kaloo si laakiin dhibaato u qabay ma jirto. xaaladiisa caafimaad si kasta aad iyo aad buu wanaagsanaa. waanu wareysanay, aad baan u wareysanay, saacado badan baan la joognay xildhibaanada yadaasi. marka aad iyo aad buu wanaagsanaa xaaladiisa caafimaad, waxaan xorriyadda ka maqan ahayn. aad iyo aad buu wanaagsanaa cabdimaalik. sida uu noo sheegay iyo taliyaha xabsigaba warqadda eedee uu hayo, laba qodob buu ku eedeysan yahay oo ah kicin dadweyne iyo aflagaada madaxeed, qodob laga soo qaatay. nuxurkeedana marka la isku soo ururiyo, madaxweynuhu markuu ka qayb galay jaamacaddiisa la socoteen, waa kii cabdimaalikna u jawaabay. marka guud ahaan qadiyadda u xidhan yahay jaamacaddii markuu madaxweynuhu ka qayb galay, uu madaxweynuhu ka hadlay, uu isna u jawaabay, qadiyadaasunbuu u xidhan yahay guud ahaan. marka labada qodobna hadalladiisa qadiyaddaa uu kaga hadlay ayaa laga soo dhex qaatay. marka labadaa qodob buu ku eedeysan yahay oo hadalka nuxurku noqonayo ereyada uu yidhi arrimo diin kalaa laga faafinayaa waddanka, oo macnaheeda loo turjumay in la yidhi bulshadaa lagu kicinayay wax la mid ah. kolleyse laakiin hawshaana baadhis waa tii laga sameeyey. marka labadaa qodob buu ku eedeysan yahay, waana dee cadaaladdana uu sugaya. cabdimaalik xadhiggiisu waa xadhig siyaasi ah marka loo eego siiqada loo xidhay iyo siiqada ku eedeysan yahayba. ese laakiin insha allahu tacaala ka gol ahaan, hadday maxkamadaha iyo hay-adaha ku shaqada la tahay iyo hadday xukuumadda tahayba, waanu ku dabageli doonaa, waanu kala hadli doonaa. dariiqyada ay qusayso oo dhanna waanu mari doonaa, waanu kala hadli doonaa, kana fadhiisan mayno. waddadaan u maraynaa dee way caddahay oo qofka dee laba siyood waxyaabaha qaar dee qarankeennu wuxuu ku soo meel gaadhay wadahadal iyo tanaasul. waxyaabaha waa lays eedeeyaa, eedda sharci iyo maxkamadna waa lagu dhammeeyaa, wadahadal iyo isu tanaasul iyo maslaxad kalena waa lagu dhammeeyaa. marka dee labada dariiqba waa dariiqyo furan. hase yeeshee annagu ka mas-uuliyad ahaan shalay horta wax dhibi kama muuqan, caafimaadkiisu waa 100%. inaanu insha allah xorriyaddiisa dub u helo oo aanu kala hadalno xukuumadda iyo hay-adaha garsoorkaba, taasaa noo qorshaysan oo aanu kala hadli doonaa, aanu mari doonaa insha allahu tacaala. ma filayo horta iminka anigu inuu dee madaxweynaha laftiisa kusii adkaysanayo. madaxweynaha hadday ku xidhantana waa u tegaynaa ka gol ahaan, ama annagoo procedurkiisa marayna oo shirguddoonka iyo dee structureka aanu marayna ka gol ahaan. hadday madaxweynaha ku xidhanto waanu u tegaynaa madaxweynaha waa kala hadlaynaa. madaxweynahana ma filayo inuu iminka kusii adkaysanayaba. madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka, dee shacabka o dhan buu madaxweyne u yahay. waxa weeye kursigaa dee shakhsiyaddiisa la caayi maayo, kursigaa cayda leh. madaxweynihii ka horreeyey axmed siilaanyaba waad arki jirteenoo warbaahinta salaadiinta somalilan, salaadiinta ugu waaweyn iyo siyaasiyiinta somalilan iyo dad badan oo kale waa beriyo wax kasta waa lagu odhan jiray. oo aan maanta filayo inaan madaxweynaha maanta qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi looma caayo sidii axmed siilaanyo loo caayi jiray. axmed siilaanyo ayaa 90% ka cay badnaa cayaha lagu odhan jiray. waxyaabaha la odhan jiray axmed siilaanyo lagu odhan jiray markaan isbarbar dhigo,
axmed siilaanya lagu cayb badnaa cabdikariim bulshaawi telefishinka bulsho hargeysa